haddii aad u malaynayso shimbiro waxani waa shahiidka shalay u daatay Yuhuudda, mid ka mid ah kuwa ugu halista badan dunida, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iska loo yaqaan, kuwaasoo ku caanbaxay isqarxinta. waxaa soo saarta dowladda Iiraan, waxaana laga soo minguuriyey weerarada istishhaadiga iyo isqarxinta. haddaba ma waxaa soo baxaya fashil ku yimid farsamadan cajiibka ah kadib weerarkii xalay? maxaa loogu bixiyey shahiid? sideese lagu farsameeyey? qaalkana sii faafi. waxaa loogu magac daray shahiid, waxaana la oran karaa waa midda ugu halista badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iska loo yaqaan. isqarxinta iyo weerarada istishhaadiga ah ayaa laga soo minguuriyey diyaaraddan, waxaana ay caan ku tahay isqarxinta. waa nooc ka mid ah diyaaradihii ugu dambeeyey dunida ee loo yaqaan drone-ka oo ay maamusho Iiraan. Iiraan waa waddanka labaad ee ugu awoodda badan Bariga Dhexe iyo waddanka 14aad ee ugu quwadda weyn dunida. waxaa ka horeeya oo kaliya dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Mareykan, Ruush iyo China. awoodda waddankan muslimka ah waxaa qayb muhiima ka qaatay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee shahiid. shahiid waxaa farsameeyey arday ka mid ah ilaalada kacaanka ee Iiraan. cimrigeedu waa 4 sano uun ama ka yar. waxaa markii ugu horeysay magaceedu uu soo baxay sanadkii 2021 kolkaasoo la soo saaray noocii ugu horeeyay. shahiid waxaa markaasi lagu tilmaamay tan ugu halista badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. duniduna aad ayay uga warwashay markii Iiraan ay ku dhawaaqday in ay soo saartay diyaaradaha shahiid ee isqarxiya. 1,000 kiiloomitir oo iskuweer ayay gaari kartaa halkii jeer oo la rido, waxaana laga hagaa rimuud ama raadeer kaasoo yaala gudaha waddanka Iiraan. haddii gantaalka Ruushiyaan Kalibar uu gooyo qiimo dhan $1 milyan, midka Mareykankana American Tomahawk uu yahay $2 milyan, shahiid waa $10,000 oo keliya. waxaa iibsan kara qof kasta oo gaari iibsan kara, waxaana loo ridaa sida tan. gaariga nooca caragadiska ay Soomaalidu u taqaan ama shashantada ayaa shanshan loogu daabulaa ilaa loo dhaweeyo bartilmaameedka. marka ay hawada sare marayaan, wax badan kama duwana shimbiraha kooxaha u socdaala ee dusha sare ku buuba. sawirkan waxa uu u muuqdaa midkii habeenkii la soo dhaafay u daatay Israa'iil, markii in ka badan 200 oo shahiid lagu riday. laakiin waxaa cajiib ah dacayad la faafiyey oo ahayd in la qabtay dhammaantood, iyadoona khasaarihii ay geysteen la qariyey. tijaabadii ugu horeysay ee Ukraine markii Ruushku adeegsaday ayay sii siyaaday cabsida laga qabo shahiid. bal adigu